Soomaalida meel walbo ay degan tahay dal iyo dibad halka aanu taagannahay maanta runtii waa dhul uu lahaa walaal oo walaal kale uu ka haystay oo maanta wareejinaya waxa ka shaqeeyay waa walaalo kale oo maamulka gobolka u shaqeynaya administrationka degmooyinka u shaqeynaya waa dhul la haystay oo maanta la wareejinayo oo lagu wareejinayo walaalkii lahaa waxaan halkan uga mahad celinayaa walaalkii dhulkan haystay ee wareejiyay dhulka kuna wareejiyay walaalkii waxaan guubaabinayaa in qof walbo haysta dhul uusan xaq u lahayn oo uu ka haysto walaalkii inuu u wareejiyo walaalayaal dhibaatadana haysataa muddana haysatay runtii waxa weeyaan dhulalka la kala haysto iyo xuquuqda la kala haysto in badan bay diinteenu nooga digtay arrinka waa arrin runtii xaq walaalka la haysta samadu ay la ooyso oo ay la ilmayso dhiig weeyaan oo ay samadu la dildilaacdo weeyaan ilaahay uu ka caroodo weeyaan waa ka uu dhahayo aayada ilaahay uu ku leeyahay waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyamah qofkii khiyaano yar sameeya leexsada xooladaday in yar soo marsada xaq darana kula soo wareega wuxuu iimanayaa maalinka qiyaama wixii uu khiyaanay isagoo wada waa ka uu dhahayo ilaahay isagoo dhaaranaya aad dhagaha u fura Soomaaliy in badan baa la isdhacay in badan baa la isdulmay xoolihii beero la kala qaatay wax nool iyo wax mooda la kala qaatay waa ka dhaaranaya alle ilaahay isagoona dhaar u maaragtay aan u baahnayn yuu u soo marinaya dhaarta inoo soo marinaya waa xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa ka uu dhahayo fa rabbik لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون محمد صلى الله عليه وسلم ربigaagan ku dhaartay isaga isku dhaaranaya Allah subhanahu rabbigaagan ku dhaartay Muhammadow waxaanu weydiinaynaa insaanka oo dhan waanu weydiinaynaa maxaa la weydiinayaa amma kaanu yacmaluun intay dunida joogeen wixii ay sameynayeen wixii dulmiya oo ay sameynayeen wixii xuquuqaha oo ay leexsadeen dulmigii iyo madlamadii ay qaateen ayaanu weydiinaynaa haddii la weydiiyo maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya ciqaab waxa la isweydiinayo ma aha wax halkan looga tegaya xabiibka dhahaya sallallahu alayhi wasallam wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighayri haqqihi إلا لقي الله يحمله يوم القيامة والله متكين نوح أوسن لهين مقاته دول أوسن لهين بد أوسن لهين باري عيل أوسن لهين جواري أوسن لهين حق أوسن لهين مقاته إلا هدي أوقاته سدا أوكد انتو إساقونا أوجودين دتك إلها مالك قيامة إلهي وحول كل ميا إساقو سدا حقي إساقو سدا لقنا قاضي مايو culayskeeduna way daran tahay cadaab baad galaysaa marka iyada ah xaq maanta la kala qaatay bari la isweydiin doono waa ka xabiibka mar kale uu dhahayo sallallahu alayhi wasallam la tu'addunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyamah hatta yuqada lishati aljalha min ashati alqarna wallahi ودارنيا ومر لبات أو حبيب كانوا دارنيا صلى الله عليه وسلم والله واد جوديسان أو أد جوديسان حقوقيه حقي دولاركي أتكل قادتين حوله أتكل لحستين حق درنا أتكو قادتين أتكو تابستين والله وحد جوديسان الكوذا وقارما ومالك قيامها هديدان الدونك أنت اختيارك عادلي ذهين أيضا دتكودي وعلينين مالك قيامات جوديسان أو أد كينيسان وحغاية لغا عبري إنسان كحق إنودي حتى حيوانات كي حقوق دا كلاقاتي ريدي جيسها لهايد تي سيمن تاهايد كدعستي عوسكا وادتك وحوليه آنان تكلفو دا لسارين قرآن لو سو دجنين عقلي لو يلين حتى حيوان كيبو إلهي مالك قيامه وكلا قرقاديا أو تي سيمن تاهايد أدون كل الريحي عوسكا لغا لحسدي أيا جيس لو يلايا تي كلا لغا جرايا كدب بيسيدي بي ugalaysa كونوا ترابا عرى النقضة لليهي لكن إنسانك
xuquuqdii buu gudayaa ma aha daar aad maanta qaadatay beer aad maanta qaadatay qiyaamaha inaad dadkiisi siinaysid maalinka qiyaamo dhul laysuma celiyo dirham iyo diinaar ma yaalaan maxaa la samaynayaa camalkaagii wanaagsanaa soonkaagii salaadaadii zakadaadii intii aad janno ku geli lahayd ayaa lagaa wareejinayaa isagiyaa la siinayaa haddii waxaagii dhammaadaanna camalkaagii saalixa inta dembigii dadkii aad dhacday lasoo qaado ayaa madaxa lagaa saaraya cadaab baad gelaysaa uma adkaysan kartaan cadaabka markaa waxaan leeyahay dadku waa isdulmay laakiin maanta waa walaalo in liscafiyaa la doonayaa maanta inta awoodda aad leedihiin dadka xoolaha haysto ama xaggooda wax laga tabanayo maanta imaada sida sheekh Abuukar Cadaani oo kale oo imaada telefishinada Allah barakeeyo sheekhaas sheekh aad u qalbi fiican waaye oo imaada oo dhaha xoolaha naga soo raadsada oo walaalihiina haddii xataa xoolihii idinku lumeen u tago nacafiya dhaha cafis weydiista maanta madlamada hala kala baxo waxaan kaloo halkaan fariin uga dirayaa guddiga khilaafaadka iyo dadka loo xil saaray arrinkan in badan baan runtii u mahad celinaya walaashay Safiyo iyo dadka la shaqeynaya intaasaa hoosta looga jira gabadha yar ee halkaa ma aragtay dulmiga rabtay inay ma aragtay dhulka ay ka baabiso dadkii xaq lahaa madluumiinta taagta darnaa doonaysa inay caawiso sidoo xabiibkeen u caawin jiray taasina halkaas hoosta uga wada jiraan oo ay la leeyahay haddana ma aragtay maxaa kuugu jira maxaad ka qaadatay ma lagu siiyay maad lacag ku jaajargaraysid maad wax ka qaadid subxaanallah eega ilaahay baan ku dhaariye xataa rasuulkeena wad garanaysaan daartii maka ku taalay reer maka oo ma aragtay mushrikiin aha daar kufaar aha baa waxay idaylkood isugu duubmeen oo ay ku heshiiyeen maka inaana lagu arkin nin madluum ah maka inaana lagu arkin madluum gurigii Cabdullah ibn Jud'aan ayaa baarlamaan laga dhigtay in loogu gargaaro dadka madluumiinta oo madlamadooda loogu celiyo xoolahooda loogu celiyo xabiibkan uu ka qayb galay wuxuu leeyahay isagoo muslim ah Madiina jooga ayaa wuxuu leeyahay maanta hadii maka la iigu yeeri lahaa maka waa mushrik marka waa gaalo oo gaala joogta hadii maanta la iigu yeeri lahaa mako gurigii Cabdullah ibn Jud'aan ee dadka madluumiinta xaqooda loogu celinayay wallahi waan tagi lahaa si aan madluumiinta ugu gargaaro maxaa yeelay isaga dhahaya unsur akhaaka zaliman aw madluuman walaalka u gargaar hadduu zaalim yahay iyo haddii madluum uu yahay zaalimka gacanta la qabtaa cadaabka laga badbaadinaya ma gali karo laakiin ninka madluumkaana xaqiisii baa la siinaya waa idinku dheereeyay waxaan ku soo khatimayaa war dhulalku ciyaar maaha beeruhu ciyaar